bandhigii Kabayara iyo Kuala Lumpur waa bandhig faneed ee fanaanadii laga daba dhacay sanadihii dambe la holin waayay ee Farxiyo Kabayara ay ku qaban doonto Kuala Lumpur International Hotel oo ku yaala bartamaha caasimadda waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur habeenimada Axad oo Isniintu soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 7 February sanada 2016 bandhig faneedkan waa kii ugu horeeyay dhaqaale aruurin loogu sameynayo Maxamed Soomaali oo muddooyinkii dambe ku xanuunsanaya Malaysia balanteenu waa showga Kabayara iyo Kuala Lumpur qiimuhu wuxuu noqon doonaa mid ku raalin gelin doona oo waa 60 ringgit oo qura wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada idinkaga muuqda oo ujeedan waan joogaa habeenkaas waxa waaye waa isla shanaanaaneenayna waa idin joogaa aniga inta hadda aan la joogin day kalibahan insha Allah ku arki doonaan 7ka bisha we have a good time insha Allah waqti fiican asla qaadan doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa ku faraxsanahay meeshan soo dhaweynta Farxiyo Kabayara fanaanadeena qaaliga ah fanaanadeeda qaranka ah ayaan ku soo dhaweynaynaa meeshan ma sha Allah ayadoo u timid inay caawiso Maxamed Soomaali ma sha Allah anagana soo dhaweynaynaa walaashan qaaliga fanaanadeena qaaliga welcome aan ku leenahay Farxiyo Kabayara baa macanto welcome assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku suganahay aliboorka ee Malaysia Kuala Lumpur waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay fanaanada weyn Farxiyo Kabayara oo maanta ku soo degatay Malaysia oo ku soo dhaweynayna si wanaagsan Soomaalida oo dhan assalaamu calaykum وأنا سلام الصوماليين ملك استوجبت أنت سماها شعل ويجدان محمد يرى أيان لتشوجاه مرة وأنا نقول سود دقيقة من ماليزيا إمت محمد يرى نواكنها إن شاء الله وحي وربحنا وهذا لسه سعوديين.